سياسة هذا مقشة maamul waa geli karaan kulli culimadoo dhan waa arintaas waa qabaan oo culimo badan qabta inay maamul geli karaan hadduu yahay maamulkaas maamul u munaasab oo san ahay maamul ma arkaysa aan u munaasabayn ayaga oo dabeecada ay u sameeyeen iyo sida Ilaahay u abuuray u sameeyeen hadduu san dhibaato ku ahayn maamul waa gar wax geli kara marka gabadha inay maaliyad maamusho iyo inay maamusho xafiis iyo inay maamusho haddii la fiiro yahay gurigeeda iyo inay maamusho dukaan iyo haddii baqaan inay maamusho magaaladan yaa ka shaqeeya boqolkiiba 80 waxa ku jira oo shaqada hayo bulshada yeeyihiin waxa weyn subxaanallah ayagoo sharaf leh oo karaamo leh ay guriyahooda ku soo noqdaan in fara badan ana qof aan wanaagsan ka hadlaymaan waxaan ka hadlaynaa waxa waaye dadka sharafta leh oo karaamada leh oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ogsan diinteena islaamka qof ay xaq u diidayso ma jiro xaq ay ayadu leedahay qof ay u diidayso ama wax u diidi kara ma jiraan waxa weeye laakiin waa in xushmada haweenka xushmadooda karaamadooda wuxuu waa inay ilaalsadaan haday boqolkiiba 70 tahay iyo haday 20 tahay iyo haday ka badan tahay iyo haday horta waa arrin ma anzal Allah bi min sultan wax quraanuhu ku soo degan ma jiraan heshiiskaas oo kala dhaxmara Quraysh iyo Nabiga Kaleey sallallahu alayhi wasallam aad iyo caroodin waa su'aal wanaagsan arintaas taariikhda waa loo yahay annaga waxaan u ololeynaynaa group dhan annagoo ah waxay tahay inay noqoto gabar ku haboon ee maslaxada ummadda Soomaaliyeed gali karto inaysan noqon gabar qabiil inaysan mooshinan diyaarinaan dhihin inaysan laaluus bixinin laaluusna qaadanin waxaan u ololeynaynaa waa intaas markay gabdhaha soo baxaan waxaan noo diyaar inaan saminaaro aan uga dhaadhicinayno qaabkay bulshada ula shaqeyn lahayn iyo doorka dumarnimo si u muujin lahaa inaan u sameeyno